السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلي أرمها بولود كان كفلقين جرني هدي أي تاي مركز كوه رسان صوب أو قد فضلنا فرح على مدى جنبالك سياد أولوس ساعة مقال والبان سوق جرنو وحن كسانا وددي لبضكم أنكو جاري لهين كلام جوهر ayaa sheegay in nolosha quruxda badan ee xaasaska Bollywoodka ay bilaabatay markii uu arkay iyagoo ka wada hadlaya labiska jid qaybta saddexaad ee nolosha Fabulous of Bollywood Wives ayaa arki doona gabadha Neetu Kapoor iyo Ranbir Kapoor walaashii Ridham Kapoor Sinhan oo ku soo biiriya bandhiga iyadoo ay weheliyaan laba xaas oo cusub oo reer Delhi ah mararka qaarkood masiibo waxay noqon kartaa bilowga dhowr waxyeellood oo ay ku jiraan bandhig qulqul ee xilliyada badan film sameeye Karan Johar ayaa shaaca ka qaaday asalka sheekada taxanaha ee Netflix xaasaska kala Bollywoodka iyo sida ay ku bilaabatay isaga iyo jilayaasha kale ee hormuudka ka ah ee shirkadda Bollywoodka Deepika Padukone iyo Ranveer Singh ayaa la arkayay lamadan lamaane ayagoo gacmaha is haysto fasax gaaban ay kaga soo laabteen diyax gacmeedkii London Deepika Padukone iyo Ranveer Singh ayaa fasax kooban ku qaatay London lamaanahan ayaa dhammaantood dhul cadeynayay markay ku soo laabanayeen Mumbai hooyada mustaqbalka dhow ee Deepika Padukone iyo saygeeda Ranveer Singh ayaa dib ugu soo laabtay Mumbai kadib safar gaaban oo ay ku tageen London jilaaga Padmavat ayaa u muuqday mid ifiya markii ay u dhul cadeynaysay Barbaaziga iyadoo gacanta ku haysa Ranveer Singh markii ay garoonka ka soo wada baxayeen muuqaalo kala duwan oo laga soo duubay lamaanaha ayaa ku baahay baraha bulshada kuwaas oo muujinaya iyagoo wada sheekaysanaya markii ay garoonka ka dhoofiyeen sidoo kale jilaaga Simba ayaa la arkayay asigoo ka furiya gaariga albaabkiisa Deepika Padukone Anil Kapoor oo dhawaan qaatay doorka cusub ee daadiyaha Big Boss OT3 ayaa furay in uu arko heerka sare iyo hoose u dhaca jilaa iyo soo saare isagoo carabka ku adkeeyay inay lama huraan tahay in jilaayaasha aysan dalba lacag macquul ahayn bilihii ugu dambeeyay hadal heen ku saabsan lacagaha xad dhaafka ah ee xidigaha Bollywoodka laga qaado iyo qarashka sare u kaca soo jireenka ah ayaa sare u kacay film sameeyaal ay ka mid yihiin Anurag Kashyap iyo Karan Johar ayaa si cad u muujiyay dareenkooda iyagoo muujiyay saameynta lacagaha badan ay ku leeyihiin tayada iyo suurtagalnimada film sameynta iyadoo film sameeyaasha ay ku dhibaatoonayaan inay soo ceshtaan lacagta jilaaga rugcadaaga iyo soo saare Anil Kapoor oo soo daadihinayay qaybta saddexaad ee Big Boss OT ayaa hadda ku soo biiray dooda Anil oo caan ku ah warshada oo uu ka soo jiray xirfadda muddo ka badan 40 sano wuxuu arkay heerar sare iyo heerar hoos u dhaca labadaba dhawaan ayuu la hadlay indianexpress.com wuxuuna ka sheekeeyay fikirkiisa ku aadan lacagaha badan ay xidigaha ku dalbada ayaana saameyn ku yeeshan aragtida film sameeye tani waa wada hadal aad u muhiim u ah Anil wuxuu ku nuuxnuuxsaday isagoo raaciyay dhammaan jilayaasha atrishooyinka iyo farsamayaqaanada gaar ahaan xidiguhu waxay u baahan yihiin inay noqdaan kuwa dheeraad ah